waxa la yiraahdo leadership waxa la yiraahdo hoggaan siyaasiya oo dhawaaqa oo dadka u kaca oo kiciya dadka lama helin hadda mesela doorka uu ciyaaray ninka Jayta la yiraahdo Hiiraan magaalada beledweyne sida uu dadku u soo mobilize dadku u soo kiciyo u soo dhaqaajiyo oo kale hoggaan sidaas ayaa marka hore la lahaa xasan bariise waxa tahay wariyii ugu waqtiga dheeraa marka laga hadlo Soomaaliya ka waramayay dagaalkii sokeeye iyo khilaafaadkii siyaasadeed ee dalka maxay kula tahay qiimeyntaada dagaalkan ka socda gobolada dhexe ee ka dhan al-shabaab horta waxa jirta ayaan loo sababo oo dhowr ah oo la tirin kara jirta mid kamid ah waxa weeye sunnada dhaqanka bani aadamka ee Ilaahay u sameeyay waxa la yiraahdaa mid kamid ah madaxweynayaashii Mareykanka ayaa oraah laga hayay ayaa waxay ahayd in aadan dadka oo dhan siri karin waqtiga oo dhan hase yeeshee aad siri karta qayb kamid ah dadka waqtiga qayb kamid ah marka horta sunnahaasi waa jira oo dadka weliga dhagar kuma hayn kartid weliba dadka oo dhanna kuma hayn kartid laakiin qayb kamid ah dadka ayaa siri karta ilaa muddo cayiman okay marka dhinacaas fiirino waxaad arkaysaa marka nimankani ilaa waqtiga soo bilowdeen ilaa iyo hadda oo 20 sano kor u dhaaftay waxa weeye dadka qaarba mar bay soo fahmayaan qaarba marka hore diin ugu kadsoomayo marka dambe ayaguna marka hore diin uma aysan soconin waxaad arkaysaa inay u socdeen hawlo kale waxay u socdeen hadda qof taqaana xataa aysan jirin laakiin dadka ayaa marka dambe soo fahmayay oo kuleylka uu soo gaarayay in waxa lagula kacay aysan ahayn arrin oo diin ah oo waxay ahaayeen marar badan baa waxa diinta ka fog in dad shacab oo maqaayad iska jooga ama hotel iska jooga inta loola soo gala qarxiyo iyo iidan kala sooc lahayn la dilo dadka oo la laayo oo haddana la yiraahdo Ilaahay baa loogu dhawaanayaa marka waxyaabahaas oo badan oo is soo taraayay ayaa haddana marka hore magaalada ka sameynayeen marka nidaamyadii siyaasiga ahaa ayaana si fiican dadkan u qaabili jirin ama aan khatartooda arkin ama xataa wada shaqayn ay lahaayeen baa dhici karta laakiin hadda meesha ay tageen waxay ku soo aadeen xilli dawladda cusub ee jirtaana Xasan Sheekh markii la dooranayay uu hore ka bilaabay inuu ayaga dagaalkooda bilaabayo iyo ayagoo xaladkii ay sameyn jireen ka gudbayo shacab haween caruur iyo waliba gaadiid raashin u saarnaa iyo ayay hal mar gubeen waliba meeshuna waa meel oo miyi ah ma aha sida magaalada Xamar oo kale to meel weyn oo lagu kala dhumaayo haddana hal beel bay waliba sii noqdeen marka xanuunka ayaa dadka si dhab ah u taabtay isagoo awalba waayada la soo karaay oo uu soo badanay ay dad badan soo fahmayeen ayaa hadda taasi waxay u noqotay wixii kicinay baawarka furihii lagu kicinayo kala ayay noqotay marka qola sidaas ay soo kacday soo bareerto dadka kale oo dhan waa ku soo wada dhiiranayaan ilaa in badan baa oo ciil xunsanayd oo u caraysneed oo waxay ku kacayeen muxuu ahaayay ay u xintamaynin laakiin haddana naftooda iyo u baqayay maadaama ay dadka argagax gelinayaan ay si xun dadka u dilaan ay si xun dadka uga dhaqmaan ayaa waxay ahayd in dad badan oo hal mar soo kacayn la helo mooyaane qof danqadaa waxba kama dhibi jirin oo ayaga qofkaas danqaday sii dili jireen haddana uga sii dari jireen marka waxaa la dhihi karaa furaha soo kiciyay horta ugu weyn kaas waaye maxaan ku qiimeyn karnaa marka muddo dheeray al-shabaab dadka dilayeen dhacayeen boobayeen wax kastoo xun oo dadku ka caroon karaan horay u sameeyeen maxaa ka duwan oo hadda kiciyay dadka wax kale ma aha oo ka duwanay waxa weeye oo kaliya dadka xanuunka ay ku hayeen ee dhibka ay ku hayeen ayaa isa soo biirsanay oo marba soo kordhay in maanta oo dhan dadka xoolahooda la qaadanayo oo zakawaay la leeyahay oo mar walba haddana zakada waqti ilaahay jirtay aanay waqti lahayn oo haddana muxuu ahay dadki la dhacay haday diidi maagaan kii hadlana xataa laba dilay hadii la doono marka waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waxyaabaha dadka kuleylka soo gaarsiiyay laakiin hadda xilli waxay ku soo aadantay dawlad cusubna ay timid dawladda cusubna ay ballan qaaday inay la dagaalayso marka dagaalkaas oo dawladda ay ku dhawaaqayso iyo shacabkii kuleylka soo gaaray ayaa hal mar kulmay taas waxay keenaysaa marka in weerar oo baaxad leh dhinac kasta looga soo qaado waxaad moodaa in oo muxuu ahaay meel gaara oo haddana reer gaara awal ma ahayn moogta meel dad gaar ah joogaan ama qabiil gaar ah jooga iyo ma ahayn magaalo madaxda kaleeto waxa weeye meel dad badan iska joogaan oo muxuu ahaay kala qabiila oo macnaha qolo walba goonideeda xanuunka u gaaray laakiin ma aysan dhiirinayn mana aysan haynin teeda kale waxa la yiraahdo leadership waxa la yiraahdo hoggaan siyaasiya oo dhawaaqa oo dadka u kaca oo kiciya dadka lama helin hadda mesela doorka uu ciyaaray ninka Jayta la yiraahdo Hiiraan
magaalada beledweyne sida uu dadku usoo mobilize dadku usoo kiciyo uu usoo dhaqaajiyo oo kale hoggaan sidaas ayaa marka hore la lahaa laakiin hadda waa la helay marka taasaa waxay keentay in muxuu ahaay hal mar lagu wada dhaqaaqo dadkoo dhan isku soo dardarsadaan teeda kalena ha iloobin beesha caalamka laftirkeeda si aanay hore ugu heegan ahaan jirin ayay hadda heegan ugu tahay maxay tahay marka sababta ay hadda heegan u yihiin beesha caalamka marka hore waxay la'ayd dad shacab ah ama dowlada hoo nidaam ah oo ay la shaqayn karaan marka hadda waxay arkeen in dowladii dhinaceeda uu ka socdo rabitaan badan shacabkii oo kuleel ka soo gaaray marka wax lala shaqayn karo oo aan khiyaameynaynin marka hore waxaa la arki jiray dad loo maleeyo inay shabaab kasoo horjeedaan haddana shabaabkii la shaqaynayay ayaa berigii hore le hadda taas meesha waa ka baxday beesha caalamka waxyaabaha soo dhiirigeliyey oo soo kiciyey waa ka mid laakiin kuma koobna taas oo keliya waxaa kaleetoo la dhihi karaa marka la yidhahdo waxaa la yidhahdo geopoliticska ama siyaasadda juqraafiga qaabilsan laftirkeeda waxaa dhici karta inay door weyn ku leedahay masalan waxaad arkaysaa dalka deriskeena ahayd deriskana ugu weynba oo Ethiopia dagaalo sokeeya ayaa ka socda oo Tigreegaas markaad fiiriso iyo dowladoodii iyo qabaa'ilkii amxaaradii muxuu ahaay cafartii iyo waxaad arkaysaa Eritrea xataa waxaa socda meeshaas dagaal sokeeya oo u muuqda inuu weliba isu soo taraayo iyo dowladii la isleeyahay dowladda federaalka aan sheegayaa oo Ethiopia armaysan iyada xataa hadhowta ka lug bixi kari doonin taasi waxay keenaysaa marka haddii inta xamar ama Soomaaliya laga helo muxuu ahaay wax la dagaalamaya xasilooni darrada gobolka ku dhici karta inay beesha caalamka ku dhiirato ay tiraahdo bilaa waa intaasoo Ethiopia ay hadday doonto isku yaacde gobolka oo dhan isku yaacsanaaneen meel wax laga qaban karo haddii ay jirto halala shaqeeyo oo macnaha haddii Ethiopia qasanto kalato in Soomaaliya ay xasiloon tahay oo markaas ay noqoto meel weli beesha caalamka haddii ay taageeri lahayd iyo haddii ay taakulayn lahayd dhinaca Ethiopia qaska ka jiro kalato in ay meel xasilan ay deris la tahay oo aysan deris la ahaanin meel ayana argagixisa hooy u ah oo iyadoo Ethiopia qas ka kacay oo haddana Soomaaliya ay joogaan kuwaas aan sharciga iyo nidaamka iyo diinta iyo caqliga midna ogoleen ay joogaan wuxuu noqon lahaa gobol isla wada gubanaya marka beesha caalamka waxaad moodaa laftirkooda in ay taas qayb ka tahay waxaa la yidhaahdo siyaasadda juqraafiga in la fiiriyo in Ethiopia iyo Soomaaliya aysan isku mar qasnaanin awalba dal inuu qasnaado cidna ma rabto laakiin haddana qaska inuu saasoo kale laba dal oo gobol dhan joogaan inuu qaskaasi u gaaro ayaa la diidan yahay marka taasna waa ka mid sida anigu aan isleeyahay waaye haddaan marka usoo noqono beesha caalamka mar hore dalkan markaad fiiriso waxaa jiray diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka lagu duqeyn jiray dadka hogaamiyaasha al-shabaab ah kuwooda mataqaanaa loo arko inay khatar yihiin inkastoo ay jiraan kuwo badan oo aan la dilin oo dalka iska dhex jooga marka dagaalkaas ayaa socon jiray laakiin dagaal toos ah oo markay timaado lagu qaado deegaano al-shabaab ay haystaan 15 sano ugu dambeysay sidaan oo kale ma dhicin oo dhowr magaalo iyo dhowr deegaan laga xureeyo marka xilligan markaad fiiriso adigu ma isleedahay dagaalkan waa lagu guuleysanayaa welibana shaki kuma jiro marka hore beesha caalamka sidaad sheegaysid waa run oo hogaamiyaasha shabaabka qaar kamida hadda meelaha lagu arko iyo meelaha laga heli karayo ayaa ayaga la bartilmaameedsan jiray laakiin ogow kaasi wuxuu ahaa siyaasadda markaasi lagu dhaqmay siyaasadda la yiraahdo xakamaynta ma ahayn siyaasad ahayd ciribtir dagaalkaas istaraatiijigiisa wuxuu ahaa in la xakameeyo macnaha mar walba kolba awoodooda hoos loo dhigo qof muhiim u ahaa oo maamul u hayay ama madax u ahaa ama dhaqaale u hayay oo kale ayaa laga dilaya ama hogaamiyaasha kaliya marka ciidamadii weli sidoodii u joogaan fikirka lama diriraynin moogta dagaal wuxuu xaqiiqoodaa marka fikirka la dilo laakiin haddii qofka hogaamiyaha keligiis la dilo fikirkii weli waa nool yahay qof kale unbay meesha kusoo bedelayaan marka taasi ma noqoto xal laakiin marka fikirka la dilo sida haddoo kale sida shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadda ay wada dhacsan tahay ama intooda badan 80% baan ilaahay ay wada dhacsan tahay in shabaab waxay wadaan aanay diin ahayn ee ay diin la'aan iyo weliba tahay muxuu ahaay dadamayn oo kaliya oo aan muraad dambe oo macna lehayba ka muuqaninba marka dadku way soo gaareen marka hore waxay ahayd siyaasadda beesha caalamka oo kuwaas lagu beegsanayo hogaamiyaasha kaliya in la xakameeyo oo aysan awood aad u badan yeelanin laakiin hadda waxa way nidaamka socdaa xakamayn maaha markaan waa ciribtir marka la qiimeeyo hadda dagaalka Hiiraan wuxuu tusaale u noqday uu soo saaray ceebo kamid ah al-shabaabku inaanay dagaalamaynin oo meelaha lagu weeraro dhan ay ka sii cararayaan laba meel ayaa la sheegay inay ku dagaalameen oo lagu jabiyay maxaa ugu wacan bay kula tahay inay markaa cararaan
waxa ugu wacan inay cararaan in aad looga xoog badan yahay xagga cududa hubka ee la adeegsanayo teeda kale ayagu marka horeba ma ahayn waxay dadka ku haysteen tiro waxaad arkaysaa magaalo kastoo aad tagto ama dadka aad ka wareysato ciidanka shabaabka ah ee jooga magaalada waaweyn baa waxa lagu leeyahay konton xataa ma dhama meel saldhiga waa jiraan ay dadka ku tababartaan laakiin waa kala firirsan yihiin markaasay hadba meesha ay rabaan inay wax ka fuliyaan ayay inta soo urursadaan isu soo gurmadaan hal meel markaas aadi jireen laakiin marna ma jirin meel ciidamada Soomaaliyeed xataa kaligood ayagoo ah ay inta aadeen ay iska celiyeen ayagu waxay jecel yihiin qof aan hubaysnayn qof aan taag lahayn oo aan iska dhicin karin inay dilaan inay qarxiyaan inay argagixiyaan laakiin weligood ciidan cudud ahaan inta meel u soo weeraraan iskama dhicin kari jirin weligood waa la jebin jiray meesha ciidamada Soomaaliyeed xataa isku arkaan maxaa ugu markaa waxa loo arkay ma hubaysanaysan waxa loo arkay inay kala firxanayaan wax kala ma ahane waxa weeye kala fiirsanaashadoodii ayaa dagaalka wuxuu hal meel uga bilow hal meel kama bilaabanayna dhowr meel oo kala duwan oo hal mar ka bilowday marka ma kari karaan hadda inay isu gurmadaan ayagu meel kasta wax yar ba ka joogi jiray hal meel inay isugu tagaan fursadda ah ayaa hadda loo diiday marka dhowr aag looga qaaday dagaalka taasi marka waxa weeye meel walba ciidankii joogay iskama celin kara ciidankan ka hor imaanaya oo welibana xagga hawadana laga taageerayo marka waa inay cararaan way ku qasban yihiin hal kala ma haystaan waxa ka sii fiicneed inay mesela markay arkaan in lagana hub badan yahay lagana xoog badan yahay oo xataa hawada sare laga xukumo looga jeedo meel kasta ay aadayaan in ay badbaadiyaan dhalinyarada ay soo khaldeen oo aan waxba ogeyn oo ay diinta ku soo khaldeen inay ilaa hogaamiyaasha way ogyihiin waxay wadeen inaysan diin ahayn waxaan sheegayaa hogaamiyaasha shabaabka marka xukun bay malaha raadinayeen iyo boob iyo burcadnimo marka in ay yiraahdaan annaga intii dadkan oo dhan dhamaan lahaayeen masaakiintan dhalinyarada oo inay dhamaan lahaayeen inay ayagu isa soo dhiibaan ay dawladda la soo hadlaan ama cid kastoo ay isleeyihiin xiriir waa idin samayn karta anay la hadlaan oo ay yiraahdaan anagu koobnaato annaga musiibada ilaa annaga ay walba ka mas'uulahayn laakiin raganimadaas ma laho hadday lahaan lahaayeen waxay ahaan lahaayeen inay shacabkii tirtirta loo dilaayay oo ay deyn lahaayeen ay dhihi lahaayeen joojiye sax maahe marka dhibkaasna waa jira laakiin tala ahaan ayaga saas u fiicnaan lahayd inay hogaankooda yiraahdaan waa soo dhiibaynaa dagaalka meeshaas ha ku ekaade dhalinyarada sirarka ah oo masaakiinta oo la soo khaldayna ha nabad galaanay ay yiraahdaan dhalinyarada la kala taga dhalinyarada markaa qolada qabiilkeeda iska aadi lahayd ninkii dambiilaha si gaara dambiil dad uga galayna markaas cidiisa iyo meeshii uu ka yimid unbaa lagula xaali lahaa haddii la qabto maxkamad la geeyey iyo haddii si kale la yeelaba marka xasan oo mar haddii meelaha goobaha dagaalka hadda aan arkayno inay dhabarka jeedinayaan awoodooduna ay tahay inay dadka gaadaan oo ay xataa meeshii aan dagaalka ka socon meel aan dagaalku ka socon ay dad qabiil ahaan u ugaarsanayaan marka nimankan awoodooda ugu weynay hadda u hari karta maxay tahay awood badan uma harin tabar badan uma harin caqli badan uma harin walbana laguma ogeyn marka waa un iska sii minted kulli meel kaama dambaysa meel aad u noqotaa ma jirtee waay hadda dagaalka ay wadaan dagaal horiwaytaahu ku yahay way ku qasban yihiin ma aha dagaal marka hore ayagaa dagaalka soo bilaabi jiray initiationka waxaa la yidhaha dagaalka oo mataqaanaa alifaadiisa iyo soo weerar soo tegidda mar walka hore ayaga ahaan jiray hadda laakiin waxay arkaan in aad loogana xoog badan yahay ummadina ay ka wada hor yimaadeen oo muxuu ahay lagu soo wada kacay marka ma haleeli karayaan in ay iska dhiciyaan cidne carar maxaa dhaama buu yidhi aduuba caqlaad leedahay waay caruurta yaryar ee hadda la qabanayo dhalinyarada qaarkood carruuraa la dhihi karaa waxaa la ii sheegay xitaa iska daa salaada inaysan shanta tiir islaam aqoonin xaggee laga keenay carruurtaas carruurta waa lasoo marin habaabiyaa qaar waa lasoo khasbaa oo waalidiin tabar yaraa laga soo xoogaa waxaa loo sheegaa in diin ay helayaan qaar muxuu ahaaya dhaqaalaa lagu soo dumaa oo reerahooda ama wax la siiyaa ama canuga lafsadiisa ayaa wax la siiyaa oo mataqaanaa lagu soo khaldaa diin iyo baase isla jirto reera saboola ilmahooda in lagu soo kaxaysto sidaasoo la yidhahda idinkana waxbaa laidin siinayaa raashin baad helaysaan cunuga ilaahay buu u shaqaynayaa ummadda islaamkaa buu u shaqaynayaa lagu soo khaldo marka ciidamada ay haystaan umaba badnaba ciidamo dad waaweyn ah ciidan lamaba la dhihi karo waa shacab uun mataqaanaa lasoo majar habaabiyey oo sida wax waalan oo kale oo aan garan karin in dad badan oo layska dilo oon la aqoonin xataa waxay ka bi'iyeen aysan diin ahayn aan garan karin waa garan kartaa marka dadka ayagoon waxbarasho helin ayagoo da-doodii ay yar tahay waa labada isugu darsoon oo ay dadka kusoo jiitaan oo ay dadka kusoo khasbaan marna waa xoog marna waa soo jiidasho sidaasay ku helayeen sidaasayna ilmo ugu badan yihiin sidaasayna maangaab ugu badan yihiin waayo wax bartay inaynan raacayn ayaga xataa waa og yihiin waaye
marka haddii hadda hiiraan sida socoto la nadiifiyo oo gacanta lagu wada dhigo inta hartay la qabto galgaduudna dhaqdhaqaaqa ka socda waad ka warqabtaa oo nimanka weli waa ku sugan yihiin muxuu noqon karaa qorshaha ma in jidadka laga xiro mase in galguud lagu weeraro meel walbo ay joogaan ayaa lagu weerarayaa sida uu sheegay taliyaha ciidanka ninka la yiraahdo General Biixi oo hawsha isku dabarridaya meel looga haraayo ma jirto haddii uu dagaalkooda haduu feeriyo waa loogyahay waa soo noolaanayaan marka siisan u soo noolaan karin meel walba waa loogu tagayaa meel looga harayaa ma jirto sida madaxdu ay noo sheegeen ama dawladda siyaasiyiinta ha ahaado ama ciidamada ha ahaadane General Biixina uu sidaas ka dhawaajinayay in meel looga haraayo aysan jirin inta dalka meel kamida way joogaan la leeyahay in laga hari doonin haddii marka goboladii laga soo eriyo oo qabaa'ilkii iyo ciidankii dawladda ay soo eriyaan laakiin xamar ay dadku ugaarsanayaan maxaa la sameeyaa xamarna way iska dhicinaysaa xamarna ciidan la'aan ma aha xamar ciidan waa jooga way iska dhicinaysaa xamar lafsadeeda ma aha xamar meel cidlaa waxaa jooga ciidamadii oo nabad sugidda joogaan ciidamadii booliska joogaan qaar kamid ah militariga jooga dawladda ciidankeeda kuma koobna inta yaree dagaalka aaday hadda waxa dagaalka aaday waxa laga yaabaa inaysan ka badnayn 2 guuto ama 3 guuto laakiin guutooyinku waa badan yihiin marka ciidan la'aan ma aha xamar ma noqonaysa xamarna meel cidla ah oo ay iska soo aadaan ay waxay rabaan ka fulin karayaan waxaa dhici karta in ayagoo baxsada oo kale intay magaalada meelaha ku soo dhuntaan inay qof iyo laba iyo bistoolad iyo waxaas ay ku gaadaan ama bamba iyo wax ay wataan ay wax ku qarxiyaan waxay noqonaysaa mar walba marka dhacdo ku kooban meesheeda ma noqon karto dhacdo amniga khalkhal gelin karaysa ee magaalada ilaa hadda haddayna wad xustay xasan oo ma hayno nin madax ah oo al-shabaab ka tirsan ama hogaamiye u ah oo dagaal lagu dilay ama lagu qabtay marka dadku ilaa goormay arki doonaan dadkaas oo gacanta lagu soo dhigay ama soo dhiibay dadkaas madaxdooda ah sida lagu bartayba inkastoo dadka ugu yeeraan ay leeyihiin maleeshiyaadka yararka masaakiinta ay u sheegaan jannaad galaysaan haddii jannadu ay runtaa ayagaa ka hormari lahaa oo jannada soo aadi lahaa hogaamiyaashaas waa kuwa ugu fuulaysan waa ugu dambaynayaan gadaal bay joogaan intayba heli karaan wax ay soo mareen habaabiyaan oo ka soo horeeya waa iska soo hormarinayaan haddana waxaa dhintay qaar bay dawladda hadda sheegaysaa xataa ayaga laftirkooda kuwii ka dhintay isla ayaga laftirkooda qaar bay madaxa ka goynayeen iyadoo la leeyahay masalan sida General Biixi uu sheegay madaxyadooda in la aqoonsaday diidayaan marka dad xataa waaweyn qaar kamida inay dhinteen waa dhici kartaa oo laakiin aan weli la shaacin ayaguna ma aysan sheegin dawladina ma aysan garan karin waxay leeyihiin madaxyada ay laga gooyo dadka aan meesha ugu tagna qaarkood marka madaxdaasina inta kan nool weligood waa sii cararayaan weligood waa sii gabanayaan ilaa intaba ay heli karaan cid iska soo hormariyaan ilaa meesha way ogyihiin inaan janno loo soconin waay waad maqlaysay qiimayntaada maxay kula noqonaysaa al-shabaab hadda markuu dagaalka hiiraan ka bilowday madaxdoodu waa hadleen hadal u muuqdo calaacal oo ay dadkii leeyihiin mataqaanaa diintiin u gargaara ha mataqaana dilinina wax noocaasa maxaad ku qiimayn lahayd cali dheere iyo ragga la midka markay hadleen dagaalkan ugu dambeeyay wax kala ma aha waxay isleeyihiin haddii weli aad weli wax sii marin habaabin kartaan waa isku day aan macno badan samaynaynin calaacalka dadkii bay beer nugushanayaan ay isleeyihiin ama qabiil ha idinkugu soo danqadaana ama mataqaanaa diin dad aan waxba aqoonin idinku soo raacaan laakiin waxaad moodaa taasi inay tahay mid aad iyo aad u soo daahday inay dadka inay qabaa'ilka jeclaadaan in xataa culamaa diinka ay u yeerayeen waad maqlaysay ay lahaayeen culamaa diinka dadka ha ka celiyaano dadka gaalnimada ku daadanayo marka culamaa ewelna ma ogolayn ba culamo waxa la yiraahdo ayaga kaliya muslim isu yaqiin waxa kale oo dhan waa dilayeen waliba culamo meeqay dileen waad ogtahay ay masaajidka ku dhex dilayeen oo ay dadka qofka masaajidka soo socda dilayeen qofka masaajidka ka baxayna dilayeen taas macnaheedu wuxuu ahaa inay dadka diinta ka cayrinayeen marka horeba marka ayagu diin ma ahayn marna waxay u socdeen culamana ma aysan ahayn hadda khudbadaas ninkaas uu akhrinayo meelaha ka akhrinayna waxaa la yiraahdaa iska calaacal iyo beer laxaws iyo maahe waa ogyahay inaysan waxba tarayn nooja waqtiga uu dhamaaday wuu ogyahay dadku hadda waxay arkaan in laga adkaan karo al-shabaab dad badan oon weligood ku talagelin inay iska xoreyn karaan way baraarugeen markaad hadda qiimaysa markaa ugu dambeyn dadku sidee ku ogaan karaan al-shabaab in laga saaray oo ma laga sifayn karo guud ahaan waddanka haddii aan weli madaxdoodii gacanta lagu soo dhigin madaxdooda ama gacan baa lagu dhigi doonaa ama waa la dili doonaa laakiin waxaad ogaataa marka xamar laga reebo oo xamarna laftirkiisa uu fududaan doono marka si loo nadiifiyo ay laftirkeeda fududaan doonto dadku waa dad is yaqaana
gobol kasta ama magaalo kasta ama tuulo kasta oo inta degan way istaqaanay inta shabaabka ay dhex joogtay ku amarku taagleynaysa ee dhibaysay ee marna karbaashaysay xataa islaamaha waayeelada oo aan jilbaab aqoonin leedahay maxaa jilbaab soo qaadaways oo la garaacay marka dadka aad iyo aad ay u yaqaanaan intii dhibaysay marka ma dhex joogi karayaan taasaa keenaysa inay meel kasta ka nadiifoobaan xamarna sidoo kale ay noqonaysaa haddaba xamar nabadeeda waa fiican tahay waad aragtaa wax dhibahoo jiraan ma jiraan ciidamadii nabad sugidda waa shaqaynayaan intaas waxay fashilayaan qorshayaal oo kuwa yaryaroo meelaha ku dhuudhuumanayay iyo ama meelaha lagu soo qoriyay mar hore ku dhuudhuumanayay soo qabtooyaan hubkooday soo qabanayaan ayagoo weliba guryo ay leeyihiin guryo ay degan yihiin hub laga soo bixinayo iyo rasaas iyo bambooyin iyo waxyaalaha qarxay marka hawshaas waa hawl wada socota waana la yaqaanaa oo dadka kuma dhex dhuuman kara Soomaalida moogta waa afar ilmaadeer oo is wada taqaana marka cid aan la aqoonin ma jirto cid dib geysatayna waxaa la yiraahdaa muxuu ahaa ciidan cuna calooshiisu ka tuun qodaa qofka shabaabka laftirkiisa dadka dhex joogi karaynin oo ay u tahay ama inuu dhinto ama inuu ka shaqaysto dalka uga carari lahaa oo ku helo meel kale ku nabad galo la inta waa laga yaqaanaa xasan bariise ayuu ahaa oo ah wariyihii ugu waqtiga dheeraa ee usoo joogay wixii dalkan soo maray gaar ahaan marka laga hadlo dagaalkii sokeeye khilaafaadkii siyaasadeed iyo dagaaladii argagixisada ee dalka ka dhacay doorashooyinkii siyaasadii laguna tilmaami karo ninka ugu waay aragsan ee Soomaaliya ku nool ee goobjoog u ahaa wixii soo maray wadankan oo guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyo hareeraheeda xasan aad iyo aad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga adiga mudan ayaan aad iyo aad u mahadsan tahay